موبايلك هو عشور وهذاك هو عشور بيو هو عشور cuntada waa cashuur guriga waa cashuur wax walba waa cashuur cuntaan habeen soo iibsaday hodheelada ka mid ah musbaar baan ku dhex arkay inta diganaysay iminka iskuulka ama primary ha noqdo ama secondary ha noqdo ama jaamacad gura degaan ku yimaado minku ma jirtaa ku yiri xaaladaadu waa sidee kulama maqash beer baad arkaysaa oo maalintii aad weydo habeenkii aad helayso baado kaarkaagina la soo baxdo aad ugu codayso waxaan dhan aan ka tabanayna iminka waan weydiin lahayn ka Ustaad Xuseen baan insha Allah banalka inoo furi doona bal gobolkeena resourceska waxyaabaha laga gaabiyo waxyaabaha la qaban karo waxyaabaha soo dhan buu inooga hadli doona insha Allah taala 10 daqiiqo ku soo dhaweynaya بسم الله الرحمن الرحيم ugu horeyn ilaahay baa mahad leh aad baan ugu mahad celinayaa marka labaad akademiyada manmaal gudoomiyaheeda howlwaladeeda iyo TV-ga maanta aan halkan lagu casuumay sidoo kale labaanada agteeda fadhiya aad baad u mahadsantihiin idinkana bulshada iyo TV-ga aad baad u mahadsantihiin maanta magacayga marka hore waxa weeyaan waa Xuseen Muumin Cabdalla in badan qoladiina horteena fadhido in badan waanu saragnay qaaraan jaamacada isku aragnay iyo qaaraan dugsi isku aragnay sare intaba way jiraan macalinka bari baan hore wada shaqeynay xitaa asaga aan iskuulka wada shaqeyn jirnay maantana hadii xildhibaan inta markii laga gudbo barashada kule jaamacada iyo iskuulada imika waan joogaa waxyaabo badan waxaa jiro markaad magaalada joogto aqooniyadana waxaa la yiri aqooni tan aad barato ma ahane watan ku bedeshaa waayo waxyaabaha markay kaa guuxayaan aad u baahan tahay inaad dadkaaga la wadaagtidna waa muhiim waayo aqoontu ama wixii aad garanayso ama wixii aad aragto dad ka aamusto waa wax adigu markaa dee hadhow maar kugu soo noqonayo sidaa daraadeed saddex qaybood baan doonaya inaan diiradda saaro mid waxa weeyaan waa durka bixi mayno gobolkeena iyo burcadeena baan ka fogaanin markaan burcadeena ka hadalno ayaanu ka hadli karaynaa wixii dibadda ah waxaanu ka hadli doonaa qaybta ama ka hadli doonaa qaasata aniga qaybta resource amana dakhliga iyo waxyaabaha ee u baahan ee gobolkeen u baahan yahay oo yaala oo muuqda oo idinka baad ogtihiin balse laga faa'iideysan oo aan u baahnayn bada macaawino kale labo hygieniska dhinaca nadaafadda oo golaha deegaanka naftigooda u baahan inay maaragtay dee lagaga hadli doono iyo educationka iyo waxbarashada saddexdaaba waxay hoos yimaadaan aan ka hadli doono golaha deegaanka intaba aan u arkay inay yihiin wax laga gaabiyey oo u baahan qolooyinka soo socda inay kor u qaadaan haddii aan ku horeeyo dhinaca resourceka waxyaabo badan baa jira oo ma aaminsanin baa laga yaabaa tusaale ahaan inaanu gobolkeena dhaqaale uu yaalo balse uu jiro management la'aan haddii la manage gareeyo wax fiican inoo gaarayo tusaale waxaa ka mid ahba tusaale ahaan qof walbo halkan maanta joogo tig buu soo raacay ama magaalooyinka tig baaba la raacayaaba dee sida ma tigaha iyo basaskiya iyo aan raacayno iyo gawaarida tagaasida yaryar 2,000 baan laga qaaday meelaha habeen walba ayaga waxa laga qaadaaba 8,000 8,000 habeen walba laga qaadayo imisaatigood baa ka shaqeeya gobolka togreer qurabade Burco district
bariga galbeed bay leeyihiin baan filayaa doorashadooda haddaad aragto markay is dooranayaan baangada isla dhacaan halkana video waan ku hayo waad yaabi doontaa maalintii la dooranaya waan duubo waxaan siri malaha tan haddii loo geeyo dadka qaarkood waad la yaabi doontaa baangadii magaciila isla dhacayeen waa tii barasabku ka hadlay waa tii uu taliyaha qaybta uu ka hadlay waa tii inta badan ka hadlay laakiin baangadaba lasla dhacaya idinka waad aragteen baa laga yaabaa sidaa daraaddeed dhaqaalaha habeen walbaba waxaa laga qaadaa 8,000 waxaa laga yaabaa inay yihiin ugu yaraan inay yihiin 6,000 ama 5,000 oo tigood markii la isku daro bariga galbeedka ka shaqeeyaan مثلا haddaan ka soo qaadanaba 1,000 tigaha dhaqaalooyinkan ka hadlaynaa tusaale ahaan dee gobolka dhaqaale inuu yeelan ka hadlaynaa 1,000ka waxaaba laga yaabaa habeen walba haddii laga qaado 8,000 habeenkii muxuu noqonayaa ilaa qoyaan baa tiro ku dhufso $1 ka soo qaad habeenkii haddii aan ku dhufsano tusaale ahaan 1,000 haddaan ka soo qaadano 1,000 haddaan ka soo qaadano waxa weeyaan 1,000 lagu dhuftay 8,000 muxuu noqonayaa waa 8 milyan habeenkii habeenkii qura waa 8 milyan 1,000 baan ka soo qaadanay ogow tigaan nambarka wax dabada kaga qora waan ognaa iska badaa tagaasida iska badaa basaska intaasay tahay waxaa lagu dhufanayaa 30 casho waa 24 milyan ayaa bishii ka soo xaroonaysa 24 milyan haddii loo qeybiyo 11 loo qeybiyo maxaa soo xaroonayo bishii waa 21,000 oo dollar bishii qura haddii 12 bilood lagu dhuftana dee waa lacag aanan dee waa maxay dee malaha dee wadooyinka dhan oo la sileed intaa aanu arkayno habeen walba uu ka soo xaroonayo intaa 8 milyan habeenkii magaalada kuma baaqato 6 subaxnimo way dhamaataa waayo guryaha loo furay waxaa jooga niman dee meesha dee iskaashata ah waxaa jooga maxaa la dhihi jiray dee niman dee maaragtay dee lacagta aruurinayo qofkii lacagta aruurinaya waa la xirayaa waxyaabo badan tiga baad aragtay maan filayaaba dee kadaalika waxaa ula jeedaa waxay tahay haddii dowladda hoose ay maamulayso waxaa lagu yiri 2,000 baa ku dhacday dowladda deegaanka 2,000 ayaa ku dhacday habeenkii calaa tig I don't know where ay ku dhacday laakiin haddii intaa la qaban lahaa oo si fiican loo maamuli lahaa 5,000 oo tigood iyo intaasoo tagaasida baalkeeta ah ee wadooyinkii gobolka aad buu u silayn way lacagtaasay ta meel ay ku baxdaa imanka ama meel habeenka inta ku soo baxdo dee la garanaayo marka waxa ula jeedaa waxay tahay kulaha deegaanku maadaama uu asaga doorashada u qabanayo maadaama uu asaga uu markii wax dhacaanba lagu soo xirayo meeshiisu waxay ahayd wixii maaliyadana inuu asaga gacanta ku qabto laga yaabaa niman baa ka shaqeeyo lambarada qora waxaa jiro niman baa maaragtay tusaale ahaan dee kala haga gudoomiyay leeyihiin laakiin waa lacag habeenkii ka badan 8 milyan way ka badanta intaasayt waa dee inta la isticmaalo marka waxaan oran lahaa golaha deegaanka cusub maadaama ay ka gaabiyeen kuwii hore haddii ay kuwa dambe ay soo galaan inay aad u manage gareeyaan waayo gacanta ayagaa ku haya basaska doorashadooda ku dhawaaqista ayagaa haya maxaa la dhihi jiray dee habeenkii dee kontaroola waxoo dhanba dee marka insha allah waxaan oran lahaa lacagta resourceka ee laga faa'iidaysan waayey in la ilaaliyo waayo waxay ku baxdaa un dee waxaan loo jooginba dee ama qaadii waxay ku baxaysaa un dee iyo istaba erid tigaa waxyaabo badan baa ka jira xitaa dee qofkii la xiro waxaa laga qaadaa lacag $100 baa laga qaadaa waxaad ogtihiin baan filayaa tigta cusub $80 baa laga qaadaa calaa tig
markuu soo galayo waayo taga inta badan baan raacmaan wareystaa dhagahayga anigu tigta boorama laga keenaa $40 baa laga qaadaa $60 meelahaas laga qaadaa tigta magaalada laga iibsaday oo number maanta hadda anigoo tig leh oo aan tigta iska iibiyo aan Cabdicasiis u dhiibo oo kaleeto Cabdicasiis $40 baa laga qaadayaa kala wareejina dowladda kuma dhacdo dowladda baarlamaan kuma dhacdo gobolka waxba looguma qabto I don't know meel ay qabato halkaas man baa waa maxay dee gudoomiyaasha iyo qoladaas ay tayaa qaadanaya marka halkan waxaan ka hadleeyahay waxay tahay waa resource oo muuqda balse aanu ka faa'iideysan weyne way tigaha meesha ay marto way burburisaa lacagta haddii lagu dhisi lahaa meel badan ayay gaari lahayd oo lacagta habeenkii gacanta lagu qabto oo la manage gareeyo taa waxaan leeyahay dowladdu iyo golaha deegaan inay aad looga fiirsado waxyaabahaas ay tahay resource-ka kale ee gobolka iminka tusaale ahaan aan arki kareen waxaa ka mid ah canshuurta habka guristeeda iminka canshuurta oo kale haddaanu eegno dee waxaa laga yaabaa inaynan meelo badan ay gaarin malaha dee inta suuqa unbaa lagu meeraystaa laakiin haddii xaafadaha la gaaro iyo meelaha dhan haddii la gaaro kiryoon walba loo dhiibo oo wax walba loo dhiibo dhaqli badan baa kasoo bixi lahaa deymahan la leeyahay 5 milyan baa la wareejiyey iyo 3 milyan baa la wareejiyey dee waxaan arki lahayn la leeyahay intaasoo dhaqli baan wareejiyo qasada ku jirto haddii lacagtaas ayta dee aad iyo aad waa maxay dee loo soo aruuriyo waaye taa waxaan kaga baxayaa resource-ka inta yar ugu horeeyaan ka taabtay oo golaha deegaanka dhinaca hygiene-ska golaha deegaanka dhinacooda eega naftigooda ama sanitation-ka waxyaaba markii la eego dee waxa ugu dhow waxa weeyaan waa hodheeladeena kuma ayaa controla weli hodheelan ku jirnay oo la soo galay oo la baaraya malaha markaa seexanaa la baaraa baan isleeyahay laakiin inta aanu joogno ama wax aanu ka cunayno weli maanu maqal hodheel baa albaabada la isugu dhuftay oo lagu arkay hygiene xumo waayo caalamku iminka fiidiyoya halkan aan ku hayo Ethiopia ha noqoto Kenya ha noqoto Afrika kale ha noqoto oo aan qaar mas'uuliyiin aan la wadaaga xitaa ee hadda jooga waxa weeyaan hygiene-sku ama qolooyinka golaha deegaanku waa inay eegtaa cuntooyinka iminka dad suqaarka soo aroodon waxa laga yaabaa in subax la kariyo poisons ilaahay sidii ugu ogyahay sawir halkan ku hayo iminka cuntaan habeen soo iibsaday hodheelada kamid ah musbaar baan ku dhaxarkay musbaar inta leeg ayaan ku dhaxarkay taa waxay tusaysaa waxa weeyaan dabagal la'aanta haddii wixii la dabagalo hodheelka la dabagalo talaagadooda la eego waayo cuntooyin waxaa jirto oo aan u baahnay in talaagada habeenka lagu keediyo iyo habeen u baahan in cuntada waa maxay maanta hadii dhamaato la deel la qaybiyo oo noqonaysa dee expire marka waxa weeyaan dee Soomaalideenuna kan duwarsanay waxba ma siinay malaatu waa maxay dee talaagadiina ku gorno ayaa subaxii waxa laga yaabaa waa maxay dee si kale loo sameeyo beer baad arkaysaa iyo maalintii aad weydo habeenkii aad helayso yaa badan waa aragtay ma filaya Soomaal beerkii yaraa iyo hilibkii waxa hor dhamaanaya hilibkii waxa haraya waa maxay I don't know meel ku hadhay ma garanayo sida loo sameeyo beerkaas marka insha Allah haddii uu dabagal jiro ee golaha deegaanku aad u dabagalayo qolada hygiene-sku waxaan filayaa cudurro badan oo la leeyahay meelaha nagu dhacay iminka xumad baa jirta cunayga iminka wad arkaysaa ma filaya waa xiran Soomaali waxa laga qaaday Allahu a'lam
dee baaris malaha laguma samaynin waxyaabo badan laguma samaynin dee way dhacaysaa haddana waxaan ka hadlayo waa waxaad wada ogtihiin waxaan cusub ma soo saarayo mashaki baa inagaga jira cuntooyin qaarkood aan nadarta aniga ilaahay la hortagayo waa hygieniska markaad arkaysa dee juwaan aad soo iibsatay uu qalinkoobi ku qoran yahay expireka waa cunto aad soo iibsatay juwaan aad soo iibsatay oo aan sidaanan u masax ilaahan la hortagayo uu ku qoran yahay 3 years ago oo marqaatideeda ay leedahay 3 years ago ama 4 years ago inuu dhacay oo waa maxay markaa saan u masaxay nin macalin baan oo koobiga waad garanaysaa dee sidaasaan u masaxay waxaan arkay dheed ka kale inuu ka hooseeyo waan tagay waan celiyey soo jeed dee waa lai bedelay oo wax dee la garanayo dee sidaa daraaddeed bal qofkii wax akhrin karaya baaba sidaa ula kulmee kanaan akhrin karaynin ka warama waa dhibaato soo ma kanaan akhrin karaynin ee loo rarayo 24 saacadood annagu waxaan ku tiirsannahay waa miiga alaabta loo raraa I don't know in laga baaro in la eego waxyaabo badan loo sameeyo quality qola controlska inay eegaan qolada hygieniska ee dawladda hoose inay baxaan waxyaabo badan ay baaraan ayaa muhiima taana waxaan aan u daynayaa haddii ay gabeen qolooyinkii hore ee baarlamaanka iyo qolada deegaanka loo jeeda deegaanka baarlamaanka baan gaarine qolada deegaanka haday gabeen qolooyinka cusub oo Cabdicasiis iyo ku soo jiraan insha Allah ku guuleeyo dee inay waa maxay aad uga faa'iideystaan fursadaha noocaas ay tahay waayo anigu matalayaa annaguna wada matalayaa cidina matalaysana waa cidaan u cabanayno haddii aanu si fiican ugu cabanno dee waa maxay waxbuu noo qabanayaa habka lagu dooranayo maadaama mar kale aanu ka hadli doonaa taa waayo doorashadooda sida lagu dooranayo iminka 13 baarlamaan gole deegaan baan doornaa soo ma dadkeena halkaa wada fadhiya laba iskugu jirnaa waa labo dhinaca musharaxaaga markaanu eegno waa mid aad lacag ka bixisay oo aad u soo saari lahayd waa asaga aad lacagood u dhiibto oo tiri waa maxay dee laga aruuriyo lacag adiga oo reer la yiraahdo dee ku aruuriya si uu asaga u soo baxadee macnaha waxaad buuxinaysaa waa maxay lacag siduu wax u soo aruuriyo siduu kaarka meelaha ugu doonto siduu shidaal ugu shubto lacag baad u buuxinaysaa weeyaan si aad hadhowta adiga waad wax u noqoto midnana waxa weeyaan wuxuu codka ku qaatay ama uu ku codeeyey lacag buu qaatay waa labadan way yar tahay mid lilaahi ah Soomaalideenu weli may bislaaneen ama wuxuu oranayaa maxaa faa'iido ugu jiro dee iga iibsa kaarkii ama wuxuu oranayaa ninkii oo musharaxi ahaa ee buu lacag siinaya sidoo hadhowtu waa maxay dee uu lacagta u soo celiyo sidaa daraaddeed waxaan oranayaa musharaxiintu haddii si lilaahi loo doorto oo aanan lacag lagu dooranin oo kaarkooda la qaado kaarkaagana la soo baxdo aad ugu codayso waxaan dhan aan ka tabanayna iminka waan weydiin lahayn maxaa saa u qaban weyday maxaa sidaa u yeeli weyday maxaa sidaad u oran weyday maanta hadalka haddii aan badiyo raali noqdo waad aragteen baan filayaa gole degaana markii maanta laga hadlayo haddii isbitaal laga cabanayo haddii waddo laga cabanayo haddii wasaq laga cabanayo bulshadeenu iyo tviyadu way isku baabeen warun bay naga qaadeen waa la wareystaa warka wuu gaaraa miidiyarku laakiin xildhibaan soo istaagaya halkii dhibaatada ka dhacday ma jirto intaad dhiganayseen iminka iskuulka ama primary ha noqdo ama secondary ha noqdo ama jaamacad gole degaan kuu yimaado ma jirtaa oo ku yiri
xaaladaadu waa sidee kulama maqash anigu dhowr iyo 10 sano ilmka jooga maan arag macallimada ku dhex jira sababtu waxa weeyaan dee wuxuu daydayayaa qarashka ka baxay dee qarashkii ka baxay ayuu daydayayaa keliya wuxuu noo yimaadaa ninka golaha deegaanka ay qolada baarlamaanku 2 jeer waa markii codka doonayaan iyo markii xaflad jirto ayay noo yimaadaan meel walbaad ku aragtay baan filayaa haddii xildhibaan maaragtay dee aad aragto markii xaflad jirto xagga hore buu fadhiyaa haddii la qalinjibinayo xagga hore buu fadhiyaa laakiin hadday noqoto baahida loo baahan yahay gobolkii laga jawaabayo way adag tahay sidaa daraaddeed waxaan oranayaa taana waxaa sababayso xildhibaanka haddaan doonayn inaan la xisaabtanno marka hore yaanu kaarka ka iibsanin waa sida aniga la tahay dee kaarka yaan laga iibsanin sida loola xisaabtamo biyaha caafimaadka waxyaaba asaasi u dhammadeed marka hygiene isku daanu eegno iminka shirkadaha lagu wareejiyo bade qashinka soo ma sabtays shirka waxaa maqlaya dee shirkadaha lagu wareeji annagoo canshuurna laga qaado mobilka waa canshuur ku hadalka waa canshuur biyuhu waa canshuur cuntada waa canshuur guriga waa canshuur wax walba waa canshuur haddana canshuurtaasayta waxaana lagu daray inaanu bixinno 40,000 oo laan 50,000 oo laan bishii ee qashinkeena laga qaadayo dowladda hoose way ka faa'iideysan karaysa gawaarida qaarkood waxaa ku qoran GT-ga dii doonaan dadkii waa dadkii ee ka shaqeynaya waa dadkii gawaaridii waa gawaaridii laakiin magacii baa kala duwan oo kala waa maxay dee private iyo public marka sidaa daraaddeed dee golaha deegaanku waxaa muhiima waxyaabaha qaarkood inay ayada gacanta waa maxay dee ay ku hayso si waa maxay ay bulshaduna ay uga faa'iido waxaa laga yaabaa xaafad walbaba haddii ay lacagta heli lahayd dhul bay u iibin lahayd hadday dan guud ayna jirin dhul bay u iibin lahayd isbitaal bay ka dhisi lahayd xanaano xaafad walbaba hadday lacagtaas ay gacanta lagu qabto aan kasoo sheekeynayn oo dhanba dee waxayaa dhici lahayd in garoon loogu dhiso waxayaa dhici lahayd meelo qaarkood iskuul xitaa dee uu leeyahay dee iskuullada miyaad aragteen KG oo dowladda leedahay KG dowladda leedahay maad aragteen KG-gana waxaa loogu talagalay inay dowladda gacanta ku qabato dugsiyada maaragtay dee barbaarinta inay dowladda gacanta ku qabato oo adkayso ayaa loogu talagalay laakiin golaha deegaanku asaga ayaa loogu talagalay inuu dee waa maxay waxyaabaha deegaanka ah uu gacanta waa maxay dee uun cid uga habaysanin cidna ugu maaragtay dee ugu amar qaadanin uu gacanta ku qabto haddii ayaga baawar isku yeelaan dee bulshadu way u hoggaansamayaan sidaa daraaddeed waxaan oran lahaa golaha deegaanku aad iyo aad inay fadhiga u kacaan dee qeybta ugu dambeyso haddaan ka hadlo educationku xaaladeenana mana aad uma saraysa aadna waa maxay dee uma hooseysa waayo waxaan u leeyahay sidaas waxaa weeyaan dee qof walba aqoon-yahanoo gobolka wax bartaa isla markii wuxuu ku fikiraya inuu aado waa maxay halkeebaa ugu dhow madaxtooyada ku oranaya hargeysa loo yaacayaa ninkii cilmi isbadayba iyo ninkii hanti yar isbaday wuxuu u cararayaa waa maxay hargeysa inuu aado waayo hargeysa uu aadayaa because of waxa weeye wuxuu ogyahay halka inay resource badan uuna ka soo gelaynin wuxuu ogyahay inuu halkaa shaqo badan waa maxay dee ayna ka soo gelaynin maalin dhaweed baa waxaan baarayay mashaariic baan oola keenay waxba lama kala qarsanay waa la isku wada sheegaya sooma mashaariic baa noola keenay mashaariic noola keenay oo gobolada bari ah waxaa ka mid ahaa qaybtan la yidhi maamul daadejinta hadday noqoto ID cardski
haddii ay waxay noqotay qaybtii la yiraahdo ee shahaadooyinka ee baasboorada gaadiidka iyo maaliyadda laysamadii dee waa mashaariic weeyaan wax badan soo ma ya intiina halkaa fadhido qof laga shaqaalaysiiyey maad garanaysaa halkee laga soo shaqaalaysiiyey weli ani maan arag qof iguri macalin beri waxay dhigi jirto halkan ka shaqeeya maan arag shaqooyin badan baa la keenay oo gobolka la keenay laakiin dadkii meeyi mashaariicdu markii la keeno waxaa loogu talagalay dadkii gobolka u dhashay inay ka faa'iidaan haddii laakiin dadka ay ka faa'iidi waayaan dee wax badan waa maxay dee kaarkii waa sax wixii waa sax dhalashadii waa sax wixii waa sax waa la helayaa laakiin dadku waxay u baahan yihiin waa maxay dee shaqo la'aanta gobolka ka taalo ee jirtaa ayay doonayeen inay kaga faa'iidaan sanaarsay noqon sanaagsay buu noqon wuu laga sii liitaa dee waayo halkan loo socdo waa halkan marka waxaan oranayaa allahu hadduu naftu nagu simo inaanu gobolka togdheer maamul daadejintii la sameeyey in lagaga faa'iidaysto bulshadeena dhalinyaradeenna sanadkii waxaa baxo 7,000 10,000 intaasoo jaamacad baa laga wada baxayaa intaa waxay u baahan yihiin waa maxay shaqo shaqadaana dee nin walbo meeshuu ka heli karayo waa gobolkiisa dee qaar baan weligoodba berbere gaarin oo fanfoor dhameeyey marka waxay u baahan yihiin qaar jaamacado dhameeyey oon berbere aanan gaarin ayaa jira sidaa daraaddeed waxaanu leenahay fursadaha ee gobolka ka jira wayna ka faa'iidaystaan bulshadooda marka insha allah aqoontana waxaan leeyahay dee hal laba jibaaro dee korna loo qaado golaha deegaanku ay maaragtay iskuullada eegto ay jaamacadaha eegto ay barbaarinta eegto waxyaabo badan baa waxaa jira waa maxay ay eegto bikadaalika waxaad arkaysa IDB yaduna qolo yarba waxaa jirta aniga la yara shaqeeya marka qaarkood Oxfam la yiraahdo data collections ilaa ay barigan u yar baxaan data kala soo ka soo ururiya IDB yada meelahaas gobolka togdheer baa IDB yadan baan tago ka soo ururiya waxyaabo ay u baahan yihiin meelaha qaarkood iskuulo kuma yaalaan iskuuladu haddii IDB yadaasay xitaa dee golaha deegaanku uu fariisto oo aqoonyahanka gobolka u yimaado uu yiraahdo warbargalabkii 1 saacadood si oo aruuriyaan waxaan filayaa qolooyinka IDB ilaahay baan ugu cadaabaye inuu waxbarashadoodina la eego oo maaragtay dee loo tago oo wax lagu akhriyo oo la baro oo maaragtay dee aqoontooda kor loo qaadaana waa laga maarmaan intaasaan kaga baxayaa inta ugu muhiimsan ee haddaanu ka eego resourcekii iyo hygienekii iyo educationkii wax badan way jiraan laakiin inta ugu horeysan ka soo qaatay waa intaasay taa aad badan mahadsantiin